isku daygii al-ahli ee awood ku qabsiga xukunka. xarakadii al-ahli waxay isku diyaarisay in ay xukunka dalka Soomaaliya la wareegto. qaybtan ayuu kaga warramayaa qoraaga buugga kobcii islaamiyiinta Soomaaliya Allah u naxariistay Cabdishakuur Mire Aadan. waxaanu qaybtan ku bilaabay sidan: kacaankuma aanu hurdin, waa uu foojignaa. marka laga reebo kooxaha uu u yaqaan kacaandiidka, wuxuu dareensanaa in islaamiyiintu kaga khatarsan yihiin cid kasta oo kale. tuhunka jiray awgiis waxaa xabsiyada la dhigay xubno muhiim ahaa oo ka tirsanaa dhalinyaradii baraaruga. waxaa xubnihii la xidhxidhay ka mid ahaa Cismaan Cabdulle Rooble, madaxa al-ahli gudaha, iyo xubno kaleba. waxaana la dareemay culayska weyn ee ku dhacay baraaruga islaamka. waxaa si ku meel gaadh ah hawshii hogaaminta ee dhinaca gudaha dalka ee xarakada al-ahli loogu dhiibay Xuseen Cali Xaaji, walow Cismaan Cabdulle Rooble uu madax u ahaa xubnaha xabsiga ku jiray iyo kuwa bannaanka joogayba. al-ahli ayaa aragti ahaan wakhtigaas la mid ahayd dhaqdhaqaaqa ikhwaanul muslimiinka Masar. marka laga eego wacyiga iyo diyaargarowga hanashada hoggaanka dalka, waxayse Soomaaliya maraysay marxalad kacaan ah iyadoo xukunka dalkana gacanta ku hayaan askar afkambi awoodda ku timid. wakiilka gudaha al-ahli Xuseen Cali Xaaji ayaa ahaa nin dhalinyaro ah oo markii dambe meherad yar ka furtay bacadlihii weynaa ee Xamarweyne. ma ahayn ganacsade keliya ee waxa uu ahaa shakhsiga isku dubariday howlaha culus ee al-ahli waday. waxaa bacadlihiisa yar uu ku qaabili jiray xubnaha muhiimka ahaa ee al-ahli, iyagoo wixii degdeg ah ee soo kordha la socodsiin jiray. wuxuu si fiican uga warhayay hawl kastaa meesha ay marayso. mayna awoodin sirdoonkii kacaanku in ay ka war helaan in uu bacadlaha Xamarweyne yahay halka laga hagayo dhaqdhaqaaqa dhalinyarada baraaruga. waa sii socday halgankii al-ahli ee baraaruga dacwaddu, waana sii xoogaystay iyada oo sirdoonka dawladdu ay aad u daba taagnaayeen dhaqdhaqaaq kasta oo ay u arkayeen inuu ka soo horjeedo kacaanka. Xuseen Cali Xaaji oo ahaa hogaamiyaha kumeel gaadhka ah ee al-ahli gudaha Soomaaliya wuxuu deganaa xaafadda Boondheere. gurigiisa ayuu kula kulmi jiray xubnaha lama dhaafaanka ahaa ee al-ahli, waxaana uu si gaar ah u deganaa qol lahaa 3 iridood oo 2 ka mid ahi dibadbax ahaayeen, midna uu ku sii jeedo qolalka kale ee gudaha gurigaas uu deganaa. qof kasta albaabka uu ka galo ma ahayna midka kale ayuu ka bixi jiray. aad ayaa xaaladiisa gaarka ahi u qarsoonayd. dadka xaafadda la deganina maba dareemi jirin hawsha uu waday Xuseen Cali. waxa uu ahaa Xuseen Cali Xaaji shakhsi hogaamin fiican, daacad u ah al-ahli, si hufanna isugu dubariday howlihii uu u xilsaarnaa. waxa intaa u dheeraa isaga oo ahaa nin wax akhris badan, aadna ula socday xaaladda caalamku marayo. wuxuu ku guulaystay inaan sirdoonku ka warhelin ololaha labalaxaadsaday ee al-ahli ka wadeen dhammaan geyga Soomaaliya, iyagoo dhalinyarada al-ahli sii laba jibaaray dadaalkooda dhinac walba ahaa. sanadkii 1976 ardaydii dugsiyada sare ka baxday waxaa ugu sarreeyay xubnaha ka tirsanaa al-ahli. tusaale ahaan magaalada Kismaayo waxaa kaalinta koowaad iyo kuwa ku xigayba galay xubno al-ahli ka tirsanaa, waxayna kala ahaayeen Axmed Macalin, Cabdikariin, Faarax Dheere. magaalada Jowhar waxaa kaalinta koowaad galay Cali Muuse oo ka tirsanaa al-ahli. magaalada Beledweyne waxaa kaalinta koowaad sanadkaasi galay Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo isaguna al-ahli ahaa. dadaalka dheeraadka ah ee dhalinyarada baraaruga ayaa muujinaysay sida ay dhinac walba uga dadaalayaan. al-ahli ma ahayn dhaqdhaqaaq dacwo oo keliya, wuxuuse ku howlanaa fulinta istaraatiijiyad qorshahoodu ahaa wakhtiga dheer oo ku salaysnayd in awoodda dalka Soomaaliya ay gacanta ku dhigaan, meeshana ka saaran xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Jaalle Maxamed Siyaad Barre. si taas loo helo waxaa lagama maarmaan noqotay in la diyaariyo awooddii wax bedeli lahayd, hadday ahaan lahayd mid ciidan iyo mid siyaasadeedba. al-ahli hoggaankeeda guud waxay isku waafaqeen in ciidamada lagu daro dhalinyarada ugu firfircoon ee ka midka ah xarakada, dhinaca aqoonta iyo dhinaca kaleba. go-aankaas ayaa ahaa mid guud oo la adkeeyey siduu ku fuli lahaa. waxaa la wargeliyey xubnihii loo xushay inay ku biiraan ciidamada noocyadooda kala duwan. mid kastaana wuxuu ku faraxsanaa xulidda loo xulay hawl ay u soo qabanayaan xarakada al-ahli. xubnaha ka tirsanaa al-ahli ee lagu wargeliyey ka mid noqoshada ciidamada Soomaaliya ayaa si gaar ah waxaa loogu sheegay in ay yareeyaan xidhiidhka ay la leeyihiin xubnaha kale ee baraaruga. waxaa la isugu xidhay 5 xubnood oo si gaar ah u wada shaqeeya, u kulma, diintana u wada barta. Dr. Saadiq Eenow ayaa ka hadlaya sida xaaladoodu noqotay kolkii loo sheegay inuu xubin ka noqdo ciidamadii qalabka siday ee Soomaaliya. wuxuuna yidhi 5 xubnood ayaa la isugu kaaya xidhay, dhammaan xubnaha iyagii ku biiray ciidamada. waxaa dhammaantayana lagu amray in aan yarayno oo hoos u dhigno xidhiidhkaan la lahayn xubnaha caadiga ah ee al-ahli. xubnahaanu isnaqiinay muddada ee aanu saaxiibada ahayn xataa waa ka gaabsannay.
sidii hore ee aanu ahaan jirnay wax badan ayaa iska kaaya bedelay. shantayadaas isku xidhan ayaa meel waxna loogu akhriyi jiray. doctor saadiq eenow ayaa sharaxay mar kale sidii shantii xubnood ee uu ka midka ahaa u kulmi jireen. waxaanu yidhi, shantaydii xubnood waxaan toddobaadkii mar ku kulmi jirnay guri ku yaalay xaafadda Waaberi, kasoo horjeedka baar ha idhaafin gadaashiisa ku yaalay. waxaana gurigaas deganaa amiin oo ka mid ahaa shantayda xubnood. waxaanu kala ahayn aniga, cali muuse, amiin iyo 2 xubnood oo aanan magacyadooda garanaynin wakhtigan. sidaas ayuu yidhi doctor saadiq eenow. xubnaha haddaba loo xulay ciidamada in ay ka mid noqdaan islamarkaana ka mid ahaa xarakada al ahli waxaa si feejigan loogu sheegay in ay iyagu yihiin xubnaha laga sugayo mustaqbalka in ay isbeddel ka sameeyaan Soomaaliya, awoodda dalkana gacanta ku dhigaan. axmed cali axmed ayaa isagu ka cudur daartay inuu ka mid noqdo xubnihii loo xulayay ciidamada ee ka tirsanaa al ahli. hase ahaatee xuseen cali xaaji, hogaamiyihii al ahli, ayaa ku amray inuu marka hore fuliyo amarka xarakada. waanu aqbalay. markaas kadib ayaa waxaa la dhageystay cudurdaarkiisa isagoo ku sababeeyey in walaalkiis maxamed cali axmed oo ka weyni ka mid yahay dhallinyarada ciidamada loo qoray. sidaas darteed aan waalidkiisu ku faraxsanayn inuu ka mid noqdo. xuseen cali xaaji kolkii uu dhageystay doodda axmed cali axmed wuu ka aqbalay, isagoo ka reebay xubnihii al ahli ee ciidamada lagu beeriyey. sanadkii 1976 ma ahayn markii ugu horreysay ee xubno ka tirsanaa al ahli ku biiraan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. waxaana hore u jiray xubno koobnaa oo ka mid ahaa al ahli oo hore ugu biiray ciidamada. fasax gaaban ayuu dalka ku soo gaadhay sanadkaas. waxaa loo ballamiyey xubnaha diyaarka u ahaa inay ciidamada ku biiraan ee al ahli. si kooban ayuu ugu sharaxay waxyaabaha looga baahan yahay. waxaa kaloo uu u guud maray dhaqanka waddamada ay tegi doonaan, isagoo kula dardaarmay in ay is-ilaaliyaan oo aanay dhex dabaalan waxyaabaha sucmadxumada u keeni kara. sarkaalkaas dhallinyarta ahaa ee magaciisa uu qariyo qoraagu ayaa al ahli waxay u arkayeen inuu mustaqbalka hogaamin doono afgembiga ay awoodda ku qabsan doonaan. axmed cali axmed ayaa ii xaqiijiyey biro qoraaga buugu in ninkaasi uu magaciisa qariyey tusaale u ahaa dhallinta al ahli ay ku daydaan ama ay u aqoonsanaayeen inuu ku habboonaa hogaamiyaha mustaqbalka dalka Soomaaliya ama madaxweynaha. dhallinyaradii al ahli ee la qorsheeyey inay ciidamada ku biiraan waxaa ka mid ahaa xasan mahdi oo galay kuliyaddii ciidamada jaalasiyaad ee Soomaaliya, axmed xaaji cabdiraxmaan, cali muuse, yuusuf cabdicasiis iyo xubnaha kale waxaa tababar loogu qaaday waddanka Ciraaq. faarax dheere iyo cabdiraxmaan sheekh cumar iyagana waxaa loo diray dhinaca iyo waddanka Suudaan. saadiq eenow iyo maxamed cali axmed waxay u kicitimeen dhinaca iyo dalka Masar. ma la is odhan karaa al ahli waxay haysay dhabbihii Soomaaliya lagaga curin lahaa dowlad islaami ah? waa su-aal muhiima oo uu isweydiiyey qoraaga buugu. doctor saadiq eenow ayaa su-aashaasi haddaba jawaabtan ka bixiyey. waxaa ciidamadana loogu daray ayaa marka horeba ahayd in aan inqilaab waddanka ku qabsanno oo aanu ridno dowladdii shuuciga ahayd ee uu madaxda u ahaa maxamed siyaad barre, annagoo awoodda u doonaynay in al ahli xukunka qabsato. isqarxiya haddiina la yidhaahdo waanu isqarxin lahayn wakhtigaas, sidaan u doonaynay inaan bedelno nidaamkaas shuuciga ahaa. sidaas ayuu yidhi doctor saadiq eenow. guud ahaan al ahli ayaa ahayd mid si ballaadhan oo istiraatiijiyad leh u shaqaynaysay, iyadoo kacaanka awood ahaan kula tartamaysay nidaam habaysan oo lid ku ah qorshihiisa. waxay lahaayeen qaab hagaagsan oo ay u kala socdaan dhaqdhaqaaqa xaafadaha magaalada Muqdisho. axmed cali axmed ayaa ka hadlay siduu qorshahaasi ahaa. waxaanu yidhi, waxaan xasuustaa in magaalada Muqdisho 4 qaybood ugu qaybsanayd al ahli. waxaan anigu u xil saarnaa qaybta dhexe oo ka koobnayd 4 xaafadood oo kala ahaa Waaberi, xamar jajab, xamar weyne iyo Shaangaani. si nidaamsan ayaan xaaladaha degmooyinkaasi ula socday, waxaana warbixintooda u gudbin jiray xuseen cali xaaji oo madax noo ahaa. sidii dowladda oo kale ayaan u shaqaynaynay. sidaas ayuu yidhi axmed cali axmed. sirdoonka xarakada al ahli ayaa haddaba qaab ahaan waxa uu ahaa mid qarsoon oo ka warhelidda aad iyo aad ugu wanaagsanaa, mar walbana ka warhelid fiicnaa dhinaca kacaanka. mararka qaarkood ayayba xagga warhelidda kaga horreeyeen sirdoonka dowladda ee loo yaqaanay NSS-ta. waxaa aad u caawiyey qorshihii kacaanka ee darisaynta loogu yeedhi jiray. qorshahaas ayaa al ahli wuxuu u sahlay inay ku ogaadaan cidda daacadda dhabta ah oo ah kacaanka, iyagoo dhinaca kalena sameeyey xubno al ahli ah oo wardoon ah lana socda siyaasadda isbedelaysa ee kacaanka Oktoobar. dhallinyaradii baraaruga dacwadda al ahli ayaa ku guulaysatay gaadhitaanka gobollada Soomaaliya. wuxuu dhex qaaday oo xubno muhiim ah ku yeeshay ururkoodaasi macallimiintii loo yaqaanay BB-da oo iyagu noqday dhambaalwadayaal gaadhsiiya dacwadda dugsiyadii waxbarashada. waxaa kaloo iyana door muuqda ku lahaa hirgelinta ujeedooyinka al ahli ardaydii shaqo qaranta loo yaqaanay. shaqaalihii dowladda
iyo ciidamada qalabka siday intaba. al ahli waxay u kubcaysay si xawli ah, waxaana hoggaankeedii dhammaantiis ka muuqday isku kalsoonaan, ismaqal iyo go'aan wada qaadasho lagu fuliyo daacadnimo u dhaxaysay xubnaha gudaha joogay iyo kuwa dibadda ku noolaaba. waxaa ka mug weynaa xawligooda kobaca ku socday marka dhinacyo badan laga eego aqoonta yar iyo waaye aragnimo la'aanta dhallinyaradaas baraaruga dacwadda. aqoontooda diineed ayaa ku koobnayd tafsiirkii sheekh maxamed macalin iyo kitaabkii arbaciinka, waxaana jiray qayb yar oo iyagu akhrisan jiray kutubta fikirka ah ee ay qoraan ikhwaanku. waxayse ahaayeen kuwo ku fekeraya in ay hantaan awoodda dalka Soomaaliya.